fadlan ha ilaawin inaad subscribe saartid si aad u heshid muuqaaladeedii ugu dambeeyay. Sidoo kale ha ilaawin inaad kambalelka furatid si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo hela muuqaaladeyda. Mahadsanid. cashirkan wuxuu la xiriiraa cashirkii hore oo ahaa sida inventory items loo sameynayo, ha ahaadaan stocks, ha ahaadaan description only, ha ahaadaan service, ha ahaadaan labor. Kanna waxaan ku bari doonaa sida loo sameeyo non stock itemska iyo assembly, waxyaabahaas aan ku baranaynaa. Marka maintain tag isla waxaa ku jirnaa inventory items ku jirnaa inventory item waxaan rabnaa assembly inaan sameyno, laakiin waxaa ka horeeyo assembly inaan sameyno. Assembly waxyaabaha ka kooban yahay meesha waxaa qortaa A001 AC waxa soo kaabiya assembly components waxyaabo ka kooban yahay. Anaga waxaan rabnaa kusaaban hal assembly inaan sameyno hal shay oo kursi ah. Tusaalama kursi inaan ka sameyno kasoo qaad alwaax iyo koolo iyo steel frame. Marka alwaaxna wadi kan ugu horeeyo. alwaax anaga waxaa waaye non stock item waaye, ma aha shay anaga aan soo iibsanayno, shay aan soo gadanayno aan sii gadayno ma aha. Non stock item aan dooranayna noo dooran yahay. alwaaxa lacagta aan kasoo bixino waxaa waaye $15. inta lacag gelinayna sababtoo ah waxaa sii iibinayna ma ahan. inta akoonadayna aan naqaana caadi noogu soo xir oo in la buuxiyo qasab waaye waa loo baahan yahay, haddii kale safe ma ka yeelayo. okay then waxaa idinsiisaa safe ila si lamida AC002 steel frame. sidoo kale waxaa waaye shay asna laga sameeyo asna waxaa waaye $10 iga dhig meeshaan then safe ila. mid saddexaad waxay sameysaa AC003 waxaa ii dhigtaa clue oo koolada ah kan waxaa ii dhigtaa stock itemkeen inuu ka mid yahay kasoo qaad shayaasha iibinay inuu ka mid yahay stock item ii dhig. okay waxaa kasoo qaataa lacagta kusoo gadano inay tahay $10, yacni lacagaha ku iibinayna ay tahay $15. safe ila then waxaa ii xigo marka assembly assembly na sameysto AS iyo qor assembly 001 kursi. meeshaan stock itemka waxaa iga dhigtaa marka assembly iga dhig shayga rabnaa isku xirna waaye. assembly marka inta ka doortay waxaa isoo furmay daaqada isoo furmatay. daaqadan waxaa igu soo dar meeshaan bill of materials isoo galay, yacni assembly waxyaabaha ka sameynaya inaan inta soo gashano. for example alwaax laba xabo alwaax inaan ka sameyno kasoo qaad marka inta furno waa kana waxyaabaha noo sameysnay. alwaaxa ugu horeeya meeqa xabo aan galayso laba xabo alwaax aan galaayo alwaaxana yaal. sidoo kale waxaan galaayo kasoo qaad steel frame asna in loo baahan yahay hal xabo loo baahan yahay kasoo qaad. sidoo kale koolo in loo baahan yahay clue asna oo loo baahan yahay hal xabo kasoo qaad. markaas marka aan sameynayno inaan kursi aan sameynayno intaan shay aan ka sameynaynaa. then waxaa ii dhahdaa meeshii hore igu soo laabo journal igu soo laabo. yacni marka aan sameyno lacagta gadayno waxaa waaye $50 safe ila. okay meeshaan akoono iguma xirno akoonadii inaan kusoo xirto waaye. inta sidaan naqaana sales revenue. sidoo kale meeshaan waxaa ka rabaa asna inaan ku xirto inventory no. sidoo meeshaan waxaa cost of goods sold. okay hadda safe u yeelaa. one more hal xabo inaan ku darsado waaye. halkaas xabo wax kale ma ahan serialized mid serialized inaan ku darsado waaye. for example inta waxaa qortaa equipment 001 kan soo qaad inaa noo yaalo overhead projector. projectorka caadi aan naqaani inaa noo yaalo yacni oo ah alaabta iibinayna oo ka mid yahay. marka waxaa dooranayna meeshaan serialized